iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وحين كنا حجرنا تفسير سورة البقرة آية السادة حيا سغاشا. قال الله تعالى وإذ وقت حص واذكروا waxaa xustaanoo dib u xusuusataan id wakti akhadnaa aanu qaadnay buu ilahay yidhi miihaaqakum ballantiin warafacnaa fowqakum dushiinna waxaanu dhignay aduura buurtii duurusiinaa dushiinna la keenay khuduu baanu idin idhi qaata maa aataynaakum waxyiga aanu idin siinay biquwatin dadaal ku qaata wasmacuu maqla waxa la idiin sheegay. qaaluu markaa yuhuuddu waxay idhaahdeen samicnaa maqalayo wacasaynaa diidni wa ushribuu waxa la cabsiiyey yuhuudda fii quluubihim qalbiyadooda alcijla ay xuba alcijl dibigay caabudeen jacaylkiisiibaa qalbigooda la cabsiiyey bikufrihim gaalnimaday gaaloobeen daraaddeed. qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa ya'murukum bi'sa maa shay baa xumaaday ya'murukum uu idin faraya bihi isaga iimaanukum rumayntiina noocaasi waxa idin fartay baa xumaaday in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin batihiin. reer banu israa'iil dib buu ilaahay ugu noqday aada wuxuu ugu celcelinayaa rabbi ballan uu ka qaaday oo weliba ballankaasi waa miithaaqu waa dhaar la adkeeyey oo xadhka lagu xidhxidhay sida shayga xadhigga loo xidho oo kale ayaa aada loo adkeeyey. dee waxaa lagu waaninayaa oo la farayaa inay kitaabkii ilaahay qaataan markay warwareegeenna wax la yaab laaba ilaahay uu dul keenayoo arrin qasabaa ku dhacdo buurtii baa la dul keenay duurusiina iyagoo arkaya. waxaa la farayaa oo arrintaana culayska loogu saaray inay qaadaan kitaabkii la siiyey biquwatin wasmacuu awood iyo dadaalna ku qaata ilaahayna wax ka dhagaysta. marka isku dara baa la leeyahay dadaal aad samaysaan iyo ilaahay oo daacad u noqotaan. biquwatin waa dadaalki wasmacuuna waa daacad noqda. diintana labaasaa lagu wadaa. haddaynu iska wada daacadno halkan iska wada fadhfadhiisanno diintu mana soconayso lagumana dhaqmayo lamana tixgelinayo. shaygan inaad ka daacad tahay mabda'aaga iyo naftaada oo aad u socotaa waa muhiim ood u howlgasho sida ambiyadii ilaahay ama rasuushii nebi maxamed uu soo khatibay ahayd. daacadnimana way jirtaa. dadaalkaagu hadduu nifaaq wato ama aqraad kale wuu iska fashilan yahay sidii cudurkii munaafiqiinta ku dhacay. labadaasaa la faray. waa kuwii sujuuday markaasoo aynu hore u soo xusnay inay isyar marooriyeen markay sujuudayeen. aimada qaarkood waxay idhaahdaan haddadan waxay aaminsan yihiin sujuudda ugu qiimaha badan inay tahay sujuudda dadban bay idhaha ismarooriska ah oo waxay leeyihiin faraj baabaan ku helayoo waa tiina lagaga daayay buurtii nagu dhici lahayd. markaa mudaaraad fi sujuud inay qalloociyaan saasay ayay waxoodoo dhammi u qalloocaa. halkan ilaahay uhi yuhuuddu markay ilaahay u jawaabeen waxay idhahdeen samicnaa wacasaynaa. culimada qaarkood waxay idhaahdaan samicnaa afkay ka yidhaahdeen wacasaynaana ficilkay ka yidhaahdeen oo intay yidhahdeen ilaahay ow naga daa ballan qaadnayoo maqalaye ayay haddana iska weydaarteenoo waxay doonayaan bay sameeyeen. taa way idhahdaan culimadu. laakiin wax diidayaa ma jiro inay afka ka yidhaahdaan intee oo intan ka daran bay idhaahdeen. imisoo hadal oo ka xun ayay yidhaahdeen. nebigii oo ag taagana ilaahay maqlayaan bay idhahdeen arina allaha jahra ilaahayna tusi naxnu abnaau llaahi wa axibbaau ilmo ilaahay baanu nahay bay idhahdeen. ina allaha faqiiru wanaxnu akhniyaa ilaahay baa faqiira bay idhahdeen. intaasoo hadal oo xun bay yidhaahdeenoo tan ka sii daran. lafdiga had iyo jeer waxaa lagu xambaaraa daahirkiisa
iyo sida muuqaalkiisu iyo waadixa ilaa la helo wax ka duwan marka labadaba way yiraahdeen samicnaa wa casaynaa bay yiraahdeen nasiib daradaasa ku dhacday inkaarta ayaa ku dhacday markay kuwan quraanka sidan ilaahay uu ku eedeeyay wuxuu ku amaanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo awliyadiisii iyo muuminiintii inay iyagu yiraahdeen maxay samicnaa wa atacnaa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir suuradda aakhirkeeda ka akhri waa ammaan weeye ilaahay baa inooga markhaati kacay subxaana wa tacaala inaynu ku dadaalo weeye marka waxay sheegaysaa marka aayaddu in ilaahay laga guddoonto waxyigiisa dadka qowlkooda iyo ficilkoodana iswaafaqsanaado haddaynu imika wardiyayno oo qur-aanka aynu akhriyayno oo aynu ku cibaadaysanayno oo laakiin ficilkeennu waa casaynaa yahay ka hor oo waxyigii halkaa yaalo aynu ku cibaadaysanayno tafsiirkiisii dhegaysanayno ku dhaqan aanu jirin dowladdii aanay ku dhaqmayn oon qabiiladii ku dhaqmayn oon sharkadii ku dhaqmayn oo ku dhaqmaynin qoyskii oo aanu qofkii ku dhaqmayn samicnaa way tahay laakiin dee waa casaynaa baa la socoto ficilka ah arrinkana waxaa laga eegaa qofka labadiisu inay iswaafaqsan lama taquuluuna maa laa tafcaluun wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh iswaafaqidda qowlka iyo ficilku ay iswaafaqsan sidaa ilaahay asxaabta uu ku ammaanay wax weyn weeye idan arrintaasi waa muhiim yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamka wada galo wada qaata buu ilahay waa manhajaan kala hadhayna samicnaa wa casaynaa ilaahay wuu ku eedeeyey kuwa ah ceebahay lahaayeen waxaa ka mid a waushribuu fii quluubihim alcijla bikufrihim halkay ilaahay ka jeclaan lahaayeen kitaabka ka jeclaan lahaayeen rusushiisa ka jeclaan lahaayeen dibi bay jeclaadeen jacayl weliba aada u badan oo la odhan kara qalbigooda cabbay dibiga dabcan dee qalbigu ma cabbi kare waa de wax kuuskuusan waa wax weyn oo muuqdee calaa xadfi mudaaf baa la ydhaha waa daruuri in wax lasoo qadaro wuxuu qalbigu cabbi karaa waa jacaylka jacayl bay bahalkaa u qabeen aada u badan sidii markaa nebi yuusuf qisadiisiiba ku jirtay qad shaqafahaa xubban gabadha iyada imra'atulcasiiz turaawidu fataaha inankii bay jeclaatay xaafaddeeda joogay bay ku xantee dumarku qad shaqafahaa xubban wadgalka wadnuhu u galay wadnahay ku ridatay idan qofka bani aadamka hadduu wax jeclaado waa lagu tilmaami karaa sidaa nasku idan baraya balaaqada badan inuu qalbigiisu cabbay waynu idhaahnaa inagu ninkaa hebel soomaa hebel buu cabsan yahay hebel baa ka dhexadlaya korenoo ayuu cabbay xadiidkii daciifka ahaa isaguna waxa uu tilmaamayay xikmadda ahaa xubuka shay yucmi wa yusimu haddaad wax jeclaato waanaad ka indhabeelaysa waad ku indhabeelaysa waanaad ku dhagabeelaysa dhagala-aan iyo indhala-aan qof soconaya markaa sidaas weeyo laabilaba ula nasku wuxuu ina baraya ama ilaahay aad jeclaanaysaa ama wixii ka soo horjeeda maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi marka waxa uu daliilku inagula talinaya qur'aan iyo xadiidba layna farayaa in laabtan laba ma wada gelayaane jacaylkaynu inagu ku disayno ee caruurteenna aynu barayno ee dadka lagu tarbiyeynaya ee iimaanka ahi inuu noqdo ilaahay iyo rasuulka iyo xaq iimaan ma yeelanayo qofkaan intaa jeclaan waaya marka waa ceebaynoo nimanka rasuul haya ee aayaadkii mucjisaadka haya ee kuwii la akhriyayay haya haddana dibigaa dul yuursan aad buu ugu xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii sidaa iyagoo safar ku jiraa waxay idhahan ijcal lanaa daata anwaad siday nimankaa u leeyihiin dhiray seefaha iyo yar marmaryaanay barakaystaan bal annaguna geedaanu yaro barakaysana nebi maxamedow noo samee aad buu xanaaqay nebigu waxaa ka dhigantiin buuri sidii nebi muuse qoladiisii u yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih kuwii meel caabudaya qaar wax caabudaya intay soo mareen bay idhahaan bal annagana ilaah noo samee marka waxay culimmadu yidhahdaan waa raadadka gumaysigu leeyi gumaysigu dadka rabaayaddu ka xumeeyaa waanu jaanjaamiyaa waxyaabaha uu ka kharaabiye ugu weyna waxaa ka mid ah fikirka wanaagsan iyo caqiidada lidaalik baa ilaahay uu ku eedeeyey fircoon qoladiisii baa markuu u khudbadeeyey ayaa waxa ilaahay uu fastakhafa qawmahu faataacuuh wuu fudaydsadayoo markaasuma iska aqbaleen waa sawsaa iyo saa maaha miyaanan sidaan ahayn waaya way noo dhantay idan markaa gumaysigu raad xun buu leeyahy qul bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin iimaanka ku faray arrimaha noocaasa iyo dibi caabud fool xum ah mu'miniinna may hidin
maa kuntum mu'miniin in naafiyana way noqon kartaa maa kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin batiin waa sidaa sheeganaysaan taasina iyaduna wax maaragtay ilaahay uu ka anfiyey weeye iimaankaas mu'miniin baanay ahayn qof iimaan leh waxaa shaygaa xun kuma doorsado xaqa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow in kaanat lakum haddii ay idiin sugnaatay addaaru alaakhira daarta damboo jannadaa haddaad leedihiin yuhuudey cinda allaahi rabbi agtiisa ahaatay khaalisatan hadday idiin gooni tahay min duuni innaas dadka kale la-aantood haddaad jannada keligiin leedihiin fatamanawu lmowta geerida doona in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan walan yatamanawhu abadan geerida iyo dhimashada weligood dooni maayaan bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay horu marsadeen daraaddii waxaa ka horeeya ogi wallaahu caliimu biaalimiin ilaahay dulmi falayaasha aada buu ogi walatajidannahum waxaad ku heli oo aad ku heli doontaa yuhuudda axrasa annaasi dad oo dhan inay ugu dadaal badan yihiin calaa xayaati nolol wa min aladiina ashrakuu kuwii gaalada ahaa ee aan kitaabba lahaynna way ka sii nolol jecel yihiin yawaddu axaduhum mid iyaga ka mida yuhuudda wuxuu jecel yahay low yucammaru in la cimri siiye 1000 sanatin 1000 sano wamaa huwa arrinku ma ahaanin bimusaxsixihi mid uu ka badbaadinayo kaah min alcadaabi cadaabka kama badbaadinayso an yucammara in la cumri siiyo 1000 sano cimrigiisa laga dhigo wallaahu basiirun ilaahay wuu arkayaa oo kama qarsoona bimaa yacmaluuna dadku waxa ay samaynayaan ee camal falayaan yuhuudda khuraafaadkooda iyo kibirkooda iyo isqancintooda waxaa ka mid ahaa oo ay odhan jireen aakhiro nasaaraduna dee waabay sida qur-aanku ka warramay ku raacsanaayeen waxay odhan jireen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannada ku salaaxi maayo oo geli maayo qof yuhuudiya iyo qof nasraaniya mooyaane hadal ay ku midaysan yihiin maaha laakiin yuhuudduna gaarkooday odhan jireen kuwan kale nasaaraduna gaarkooday odhan jireen oo shaydaanka ayaa ka dhex hadlayoo taa u laqimay oo u sheegay sidaasay odhan jireen xadiidka saxiixii siduu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeenna waa kuwii taa la soo hor fadhiistay naarta yaa gelaya buu waxay dhahan nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna in yar baanu ku jiraynaa intii aanu dibiga caabudnayn laaga kadibna muslimkiinaa noo weydaaranaya beentaasaa ilaahay uu shaybaadhkeedii sameeyey beentaasaan idiin sheegayaa ku shaybaadha sidan inay beentaasi aanay ka dhab ahayn dee nin jannada ku qanacsanoo inay diyaar u tahay jannadii oo halkaa u diyaar tahay ka ogsooni dee geeridaba uu iska taminiyaya leannu rafaadka tanuu ka baxaya sida rusushaba dhaqankoodu ahaa oo rususha ilaahay markay sii dhimanayaan waa la doorgelin jiray in dee adduunyada uu sii joogo iyo in kale markaasuu aakhiro doonanaya siduu nebiguba dooranaya calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanaya caaisha inooga warramayso waaya haddii ay aakhiro oo looga jeedo jannada idiin khaalisto idiin gooni tahay geerida iska doonane haddaa ku run sheegaysaan jannadaa noo gooniya ninka janno isku hubaa ha iska dhaadhaco ilaahay owna dil dhaha sidaas wey islaamkeennu dee iyaga tan dhaabad baa looga dhig waa taxaddi baa la ydhaha dhaabad bay ku tahay waa lagu hor joogsanayaa macnaheedu markaa waxa weeye ma tamaniyayaano dee aayaddaaba caddaysa laakiin beentoodun baa lagu shaybaadhayaa caddaynaysa diinteennuna ma ogola inuu qofku geerida tamaniyo midkiin yuu geerida tamaniin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidurin nazala dhibaato ku dhacday daraaddeed ayaamuhu sii joogo ayaa dee fursad iyo jaanis u ah qofka mar kasta oo cimri ilaahay uu ku siiyo fursad bay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato wey walan yatamanawhu abadan bimaa qadamat aydiihim wallaahu caliimu biaalimiin iyagaa ogsoon waxay dembi geysteenoo ka horeeyo iyo ciqaabkii iyo naaraha ka horeeyo oo nimanku kitaabkiiba akhriyayana way siyeelyeelayaane yuhuudi u ogya inaan aakhiro waxba u olin markaa ma tamaniyayaan geerida ma tamaniyaan taasi waa mid geeri waxaa tamaniyaya qofka ballanqaadkii ilaahay haysta ma haystaan waxaa ka horeeyana way ogyi taasi waa midda labaadee kalifaysa inaanay geeri tamaniyin waxa weeye adduunka marka la isu geeyo dadka joogo waa nimanka ugu nolol jecel bulahay
وأنا من كوجنا الله جعل لذلك بقى وسيلة والبا هي وضع والبا ومضها كد دالوي إلا مرة سيد الله نعلاه ومضنا وحلو جبيا والله صنعنا يا والله لا دجال ما يا نرشوا ذا إن أنا تعتابني أي وجود داليا علبك عاصمات كالدنيا ضدك وجوه الرياء برتوي برسيا ونعلاه سيا ها خاتير تودا سود وياه أكيال واي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة أرجع على حياة ونكره يا بالله نكرينا وحكم له يران شيء قاس ويريه على حياة نلل كسته ولو حياة مع الذل نلل دليسان بها تدي لا يرادا عسيبات كل ما نيسان بس نلل دليسان ما أنا نلل باي درن دلي هبا يسكت دليستاته اللي جريد ومر بين نلش دعنتاعه قفك مسلم كايوح آمسية نلش دل جاي يكفي عن تير الشهيد أو ده إلى هيكتيس الشهادة ويلا على حياة نلل كست النوع يدوني ساعة من أي نوع كانت ومن الذين أشركوا وكبيان كتاب كهيسنو ده يبنوا لو يتعين قالوا لا من نلش هو بتشعلي الدون كما أنت هدي اللي لها كنين لقال لقى جريده ولا كساوق على سنة الله وحكست الله يا ولا سيسله لكن مجر لا سأفكر يا وحوي متكود وحو تشعلي أن يعمر 1000 سنة كل سنة عمره جيس لقدقه وما هو بمزحزح من العذاب أرنكنا وحوي إن أنا كن نبت قلينا إن عذابك أن يعمر إن لعمر سيه كل سنة كمان نبت قلينا يس عذاب سنة وقلنا نبت قليسة كل سنة هدي عمره يهودي قام قالك لقدقه ده وحوي سيكر يوم عمل كيسي حلا خير الناس من طال عمره وحسن عمله dadka waxa uu khayr badan buu nabigu عليه الصلاه والسلام qofka cimrigiisu dheeri amalkiisuna wanaagsan wa sharru an-nasi man tala umruhu wa sa'a 'amalu waxa uu xun dadka qofka cimrigiisu dheeri yahay amalkiisu xun yahay kaasu baydaan noqon lahaay mumkin sana maxay u kordhinayaan iimaan laaw waxay u kordhinayaan shar ala shar noocyadiisa kala duwan bay u kordhinayaan idan marka arintu maaha عمر بدن لكن وعمل ونكس عمر بدن معها لكن وعمل بركة له عمر أنتوا إلهي كو بركة ياكو حسابا له لكن عمر بدن إله عمر النور ديره لفاق راعية وحتى لا إله النور بركة عمر الدير وحل ضياش إنه هرنتي إيه عمل ونكس وحفي عم به أنت اللفاق بيوصمين يعني عمر الدير يعود يعرون مذول ببركة يا الله راعية بالنبي ده أولا دعاء ده بركة يا خير يا وحل الراعينا يا اللفاق إذا وحال كان إنه جم موضة ومضها وحيابها زيمة وقوع عن يوهن كي ضعيف نمضة إنه كم ديها وحل هذا الدنيا شعيل كي يجير نعيل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومضى والله كوا ظهرية كوا الضبابة واللي ومضها صوص على وحل عدانتين ومضها الدنيا السجوكين يردان على معنى الحديث لكن في صومالك مش لاقيين حديث ومضها الدنيا ده يسوق كين يران دورة كما تداعى الأكلة على قصعتها سيدا هذه الشيء حيرة الله وضعونا يدتك سوق يران وكالا يدنا نلعون كالا يدنا نلعون أصحابته يا بينا وحيدا مالنتا أو من قلة يا رسول الله ميانو يرنا مسلمكم مالنتا بيو يري ما يبي أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما يريدين وابدنتهين لكن waxaad tihiin daad xoortan daadka oo xunbada daadka oo kalaati ayaati nabiga عليه الصلاه والسلام asaabakum alwahn waxa idin ku dhacay buu xanuunka la yiraahdo wahankaas muxuu habeeyay wahankaas daciifnimadaas wuxuu nabigu xubbu dunya wa karahiyatul maut addunya jacayl iyo geeri nacayb iyadoo dulaysantihiin ba adduunka saa u sii qaniinsantihiin ayaa la idin dulaysanaya la idin shukulaya almuhim marka kolka dib loo eego labada arimood ee ugu muhiimsan waa adduunyo jacayl ee muslimka duleynaya waa min asbaab alwahn waxa ducufnimada iyo dulinimada waxyaabaha keena waxa kamid ah adduunyo jacayl iyo geeri nacayb waxa kamid ah bay leeyeen culimadu waxyaabaha had iyo jeer keena wahanka isaga ah iimaanko daciifa ضعف الإيمان نبي محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
mu'minka qawiga ah ayaa ilaahay uu ka jecel yahay ka daciifka ah ee wahanka ku dhacay markaa dee quwadda la sheegayana waa quwadda iimaanka ee quwaddii muruqyada kuusanahayd maaha waa quwadda caqliga iyo quwadda fahamka iyo quwadda cilmiga iyo quwadda iimaanka waxyaabaha wahanka keena waxaa ka mid a altanaasuc waalikhtilaaf watafaruq kala kaca muslimku uu kala kacee faraara uu yeeshay oo safgaran waayo ee qolo waliba dhan u jeesato ilaahay baa ka diga wuxuu uhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu dad badan baa adduunyada soo maro iskhilaafo jabay hala mid noqonina walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum yaydaan fashilminoon awooddiinu tegine ha iskhilaafinoo ha kala tegina buu ilaahay subxaana wa tacaala waa min asbaab ilwahan min asbaab ilwahan waxyaabaha keena in ummaduhu daciifaan weliba ummadda islaamku waxaa ka mid a altarbiyatu sayi'a cala aridaa bidul in had iyo jeer ummadda lagu rabeeyo weliba da'yartooda soo kacaysa inay iskala qabsadaan inay isdhiibaan oy dulle ahaadaan berigii hore waxaa lagu rabayn jiray qofka muslimka ah inuu yahay qof isaga iyo diintiisuba ay sarrayso yo min alayaamna gaalka ka adkaan doona qustudiniya halkii la odhan jiray berigii hore istanbul laydhaah 800 sanaa la sugayey in la furo nebiguna kusii bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaraabaa farta ku fiiqay oo ka mid ahaa dadkii muslimiinta halkaa jooga cumaaniyiintii anaa furan doona buu yidhi halkaa insha allahu tacaala sidaana ilaahay u dhabeeyey subxaana wa tacaala laakiin daayarteenna iyo dadkeenna markaynu qalbiga ugu shubno ee lagu rabeeyo adigu dabadhilifkaa tahay oo adduunyada soo koraysaa tahay oo kuwa saddexaad baa tahay oo rag baa meeshan u xidhan tahay oo kuwaasunbaa laga xadhi waxaa marka dadka tacliinta loogu sheego ee lagjarada loogu sheego maamulka loogu sheego goormayse aakhira toosaya saasuma iyaguna ku rawaxaya waxaa ka mida bay leeyihin culimadu musaaxabatu lmukhadiliin inay dadka lala waa tan horubaabee mala raacsan tahay in dadka had iyo jeer wax dullaynaya uu qofku ka agdhowaado oo shisheeyihii laftiisi uu u heelan yahay alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam kuu sarreeya lagama sarreeyo waxaa ka mid a cadamu listicdaad inaanay dadkiiba diyaar garoobayninba ilaahayna dadka isaga rumeeye awliyadiisa uu la hadlo baaq buu jeediyo wuxuu leeyahy waaciduu lahu ma stadactum min quwatin wamin ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum waaaakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum gaal iyo munaafiqba ha cabsadeena awooddiina diyaarsada buu ilahay kaynala hadlaya waa kii iyaga abuuray innagana ina abuuray adduunkana iska lahaa dadkana siduu kala jeceliyay inoo sheegay marka hadday dadku amarka ilaahay qaadan waayaan oo aanay diyaar bahayn oo sidii ciise ku yeelan lahaa inay dulli kaga bixi lahayn daciifnimo aanay la diyaarhayn waa min asbaab ilwahan waa tan xub dunya wa karaahiyat lmowt waxaa ka mid a jahliga aqoontu wax badan bay ummadda kor u qaadaa cisigooda sharaftooda taariikhda hore qofku ogyahay taariikhdii ummadihii hore taariikhdii asxaabta taariikhdii dadka muslimiinta ay lahaayeen cilmigu wax badan buu dadka kor u qaadaayo waxbaraa waxa la kala macaashayuu qofku ogaanayaa iyo wuxuu u socdiyo wuxuu u nool yahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmiga le ilaahay wuu kor yeelay subxaana wa tacaala man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doono oo cisiguu ka mid yahay ilaahay diintu fahamsiiyaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan markaa jahliguna waa asbaabta wahanka keena ummadda islaamkana waxyaabaha lagu dulaysta waxaa ka mid a in aada loogula dadaalo inaanay diintooda baranin oo qur'aanka iyo qiyamku lahaa iyo sunnada saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisii iyo taariikhdiisii dadka manaahijta aan loogu qorin in laga durkiyo la yidhaahda irhaabka iyo argagixisada iyo waxaasaa ka baranaysaana bal iska yaryareeya meeshan sidhinku dadka idinkaga dalacan yahay waa halkaas bay kuleeyihin bal inaga khafiifiya almuhim kullu haadihi waxay ka mid yihiin min asbaab ilwahan marka waxay noo geysay waxaad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu nolol jecel noloshaas dulliba ha wadato almuhim markaa dadka muslimiinta laakiin cisigooda iyo diintooda ayay dareensan inay ku nool yihiin ilaahayna waxaynu ka baraynaa cisi iyo sharaf iyo wanaag inuu na siiyo dhammaanteen iyo muslimku meel walba joogaba wahada ma aquluhu waastaqfiru allah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان